munaasabada oo ahayd mid dhiirigelin dhanka waxbarashada ah loogu sameeyay qaar kamid ah ardaydii sanadkani ka gudbay imtixaankii mideysnaa ee dugsiyada hoose dhexe ee qaaday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug, waalidiin, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu horreyn ka hadlay maamulka dugsiga hoose dhexe ee Geeska Afrika, isla markaana faahfaahiyay ujeedka munaasabada. maanta waxa ilaahay mahadiisa ilaahay nabadna isku keenkeen annagoo ka qayb galayno xafladii qaranjibinta ee tobcada shanaad iskuulka Horn of Africa. iskuulka arkaysaan qaranjibintiisu waxay maraysaa tobcada shanaad oo ay ka qayb qaranjibinayso arday 165 ay maanta kor u dhaafayso. waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiinta si ay ugu soo qayb galeen xafladda iyo yeeritaankii. aad baan kaga mahadcelinaynaa. mahadcelin kadib saad ogtihiin iskuulkan taariikh dheer ayuu leeyahay ee ka bedelan iskuullada kale ayaan dhihi karaa, sababtoo ah waa iskuul isku tashiga maamulka iyo waalidiinta iyo xildhibaanada iyadoo dowlad kale oo dheeraad ay imaanin inay iskuul ay dhul dhisteen, dhul gadeen, dhul dhiseen. haddaan ardadaas ay maanta ay wax ku baranayaan. qaar kamid ah waalidiintii munaasabada ka qayb galay ayaa uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixiyeen macallimiintii wax soo baray, iyagoo dhanka kalena kula dardaarmay ardaydu inay sii xoojiyaan dadaalkooda waxbarasho. intaas kadib waa la wada hadlay, rag badan ayaa meesha ka hadlay, waxqabadka Geeska Afrika waa laga hadlay. iskuulkan sida ay ka dhawaajiyeen dadkii hore madaxda halkan ka hadlay, waxqabad fiican ayuu muujiyay, isku tashi badan ayuu muujiyay, asagoo kaashanaya waalidiinta sharafta leh halkan fadhida. waa idin mahadcelinayaa mar labaadna inaad maaragtay halkaas ka sii wadaan dadaalkiina. marka waxaan codsanaynaa anigoo wakiilka ah bulshada reer Gaalkacyo, gaar ahaan waalidiinta iskuulka Horn Africa, in ay maadaama isxilqaan weyn aan samaynay wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare in ay naga caawiyaan iyo xildhibaanada maamul goboleedka Galmudug nagala jooga. baaqaas ay amaha maqnaadeen baan u diraynaa. haddii ay tabar weydaan ay suurtoobi weydana hawshu waa noo halkeedii. gudoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka Mudug ee wasaaradda waxbarashada Galmudug, Bashiir Maxamed Faarax, iyo xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Galmudug ayaa iyaguna munaasabadan ka hadlay, iyagoona ardayda la dardaarmay. ardayda qalin jabinaysa, maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iskuulka Geeska Afrika waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. shaqo la yaqaano oo muuqata oo miyi iyo magaalaba laga dareemayo ayaa ka qabateen deegaankan. wasaaraduna waa idin ogtahay. ardayda qalin jabinaysa oo ah tiro aad u badan marka loo fiirsho xaaladda waxbarashada ee deegaanka, waxay noo tahay waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. maxaa yeelay tiro intaa leeg oo hal iskuul ka qalin jabinaysa oo tayadooda iyo awooddooda laga warqabo, runtii waxayna siinaysaa inaan shaqadii aan haynay aan deegaankan u haynay inaan sii laba laabno.